Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Halkan waxaan kugu soo gudbinayaa dhowr macluumaad oo ku saabsan jasiiradda Suuqadra. Suuqadra waa dariskeena waxayna noo jirtaa 100 kiiloomitir. Dhererka jasiiraddan ayaa waxay tahay 125 kiiloomitir oo iskuweer ah. Jasiiraddan Suuqadra ayaa Yemen waxay u jirtaa 300 kiiloomitir halka ay Soomaaliyana u jirto 100 kiiloomitir. Dadka ku nool Suuqadra ayaa waxaa lagu qiyaasaa inay yihiin 175,000 oo qof. Caasimadda Suuqadra ee Xadibo ayaa waxaa ku nool 12,000 oo qof. Dadka halkan degan amba Suuqadra degan ayaa waxay ku hadlaan luqadda la yiraahdo Meera. Dadkan ayaana waxay ka soo jeedaan Mehriyiin, waana Mehriyiin. Asalkoodu waa Mehriyiin. Suuqadra waa meel taariikhi ah. Waxaana laga helaa waxyaabaha dunida aan laga helin sida geedka loo yaqaano Dragon Blood Tree. Waa geed marka aad jartid dhiigaya ama dhiig ka imanayo. Runtii maaha dhiig, laakiin waa xabag taasoo loo adeegsado faa'iidooyin badan. Waxaana ku nool jasiiraddani xayawaano shimbiro dunida laga laayay ama ka dabar go'ay. Haddaba jasiiraddan u dhow Soomaaliya ama Soomaalida maxay uga tirsanaan weyday Soomaaliya si ay uga tirsanaatay Yemen? Guumaystii Ingiriiska oo xukumayay Yemen ayaa markii uu xornimada siiyay Yemen halkaasi ay Yemen uga mid noqotay Suuqadra. Soomaaliduna dan kama aysan gelin lahaanshaha jasiiraddaasi. Cimilada jasiiraddan ayaa ah mid dhexdhexaad ah halka ay u badan tahay dhanka kulaylka. Jasiiraddan Suuqadra ayaa waxaa hoos yimaada dhowr jasiiradood kuwaasi oo aan inta badan la degin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Fadlan haddaad muuqaalka ka heshay like saar, haddii aad kanaalka ka heshay ku biir oo subscribe dheh. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.